Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa baaq gurmadeed oo degdeg ah oo ku saabsan shuban biyoodka oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana baaqaasi idin soo jeedinaya Guddoomiyaha Dowladda Koonfur Galbeed ee Sweden, Mr. Cabdiqaadir Abuukar Sheekh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد marka hore waxaan ku salaamayaa dhammaan inta codkayga maqli doonta iyo inta oo fiidigan daawan doonta salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan waxaan rabaa in halka idinka soo jeediyo anoo ku hadlaya anoo ah magacayga Cabdiqaadir Abuukar Sheekh kuna hadlaya magaca dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Sweden baaq ku saabsan gargaar degdeg ah oo la gaaro dadka ay dhibaatooyinka saameynayaan gaar ahaan shubanka oo ay ka tagan yihiin deegaano fara badan oo ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan soo gaartay shalay in maaragtay deegaano ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan meel la yiraahdo goob la yiraahdo Hakow in ay ka jiraan xaalad degdeg ah oo aad maaragtay u adag waxaan loo sheegay in ka badan 100 qof in lagu hayo ama lagu daaweynayo laba goobood oo ay dadka deegaanka ayaga isku tashteen oo jaaliyadaha ka soo jeeda Hakow ay isku tashteen maaragtay oo ay dadkoodii gacanta ku hayaan oo ay maaragtay xoog leh hayaan laakiin xaaladda ay noqotay xaalad aad u adag dhinaca biyaha dhinaca daawada ay maaragtay ay noqotay in 100 qof in ka badan in lagu hayo laba goobood oo lagu daaweynayo runtii oo aagaasna ka tirsan Hakow degmada Walaweyn waxaa kaloo jirta ay naga soo gaartay arrimahan aaga degmada maaragtay Buurhakaba sidaas oo kale dhibaato ay ka taagan tahay dhinaca shubanka marka runtii iyo deegaano badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya marka waxaan codsanaynaa in arrintaas degdeg ah wax laga qabto oo isla markaas dadka muxsiniinta oo maaragtay Soomaalida in wax ka qabtaan gaar ahaan ay maaragtay waxay awoodaan ay goobahaas gaarsiiyaan waxaan ognahay inay jirto hay'ad gurmadka ah ama hay'adda gargaarka ee abaaraha dalka Soomaaliya ay ku boobeen dad culimo ah dad maaragtay muxsiniin ah laakiin dhibaatada jirta waxay tahay gargaarka waqti dheer ayuu qaadanayaa in la gaarsiiyo loo diro maaragtay guddiga isla markaas guddiga uu soo diro meelihii kale loo sii baahnaa marka xaalad degdeg ah ka jirta goobahaasi waxaan kaloo halka idin soo gelin doonaa telebiyo ay noo soo direen dadka deegaanka gaar ahaan deegaanka Hakow ay noo soo direen kaas oo ah maaragtay in dhibaatada ay tamid faraha ka soo baxaysa carruur badan ay ku dhimatay dad badan ay ku dhibaataysan yihiin marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baranaynaa in dadkaas darab naxariis leh u keeno in Ilaahay maaragtay oo naxariistiisa u fidiyo waxaan rajaynaynaa muslimiinta inay arrintaas ka qayb qaataan baaqan waxaan u direynaa dhammaan ummadda Soomaalida meel kasta ay joogaan aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh أو أنا جالس أنت على الحلقة ما ما هاي تتو هوي تحتي بيجي اليوم ninka meeqa anigu ka dhimid saddex anigu oo dhimid asma dhalay magaca walaalkay cali maxaa lagu daraa saddex anigu dhimid adama dhalay yaa magacyada maxay kala ayeen ko maxamed ko eedina labada anigu adama dhalay tan ayaysa adama dhash anigu tan gacanta ka hayso ee gabadhan kale haye goorma keentay kuwan kuwa kalena xaleel soo hooyey meeqa beri shumaayeen habeenku leeyahay waan hore laga keenay waxay ku dheeraadeen alxamdulilah de insha allah ilaahay mahadiis waa shal ilaahay ku sii maantana ilaahay kaa qaaday yaa walaalkay الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ورثة قادنا متكمدة ضدك أو أهل شو قرابة يوم يلا نجفت ما إلا مختار مام أنت كويت لبهلي أي كل سعد انتم هنا اللي سعود هاي حالة اللي بهلي كورم حالة اللي بهلي رفاضة ياله هاي سوال نجرين أريد داو هاي سدو مايكله داو يا أون هاي مايكله باه هاي سدو أريري يا هاي dadkan اللي بهلي لكشانة مسمير كلي لكشانة كبح بوريس ده اللي بهلي يا أم بدر هاي أنت الكوشان مام أنت كويت اللي بهلي أنت هو في كيلو كويت مان اوكي هاي عنو كان تلكشن
ريجلو لا مختار بدل يا ما شاء الله وذات كان تلفشن ريجلو هل ملة ما كل شو سيدا أرجويتان دماتي وهذا كان أنت بدنا ويلك شيني ريجلو يلك شيني جهانا يا بتكسرتي ملا ما سكت سكت لا دوضي أما هاي أكل درن تسكلي قلاني أوكي واي sida aad arkaysaan warbixinadan waxaa kaloo jira barkac baahsan iyo biyo-la-aan ka jirta deegaano badan oo ka tirsan deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya sidaa darteed waxaan baaqan u diraynaa dhammaan ummadda Soomaalida ee muxsiniinta ah meel kasta ay joogaan oo ku wajahan sidii dhibaatada shubankan baahsan oo maaragtay dad badan uu wax lagu qaban lahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inaad ka jawaabi doontaan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naga qaadi doono dhibkan uu nagu bedel doono naxariis iyo dambi dhaaf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلالة كونفور البيت السويدن